واتاي داوديال تبين سوق لابنay واتاي داوديال تبين سوق لابنay waxaa imika la keenay dhaawacyadii loo qaaday dalka qadar saad u jeedaan waa ambalaasyadii dhaawacyadaas ku dhaawacmay qaraxii ka dhacay ex control afgooye saad u jeedaan daawadayaal imika dhaawacyada ayaa la keenay dhaqaatiirta dalka qadar ayaa booqanaya dhaawacyada saad u jeedaan dhaawacyada ayaa hadda la booqanayaa dhaqaatiirtan wuxuu dhasheen dalka qadar hadda qof ka mid ah bukaanada ayay booqanayaan saa u jeedaan daawadayaal translate saa u jeedaan daawadayaal dhaqaatiirtan waxaa ka socdaan dalka qadar waxay imanka booqanayaan baabuurtii ambalaaska ahayd saad u jeedaan dhaawacyada ku jiray bukaanada ayaa hal u fiirinayaan u booqanayaan daawadayaal waatahay daawadayaal halkaad nagala socotaan waa beedka telefishinka qaranka Soomaaliyeed waxaan wali ku sugannahay garoonka Aadan Cadde International Airport waxaa hadda meeshaan ku sugan safiirka dalka qadar u fadhiya Soomaaliya iminka waxaa baabuurta laga soo dejiyay saad u jeedaan dhaawacyadii oo dhaqaatiirta dalka qadar ay soo dejiyeen mid ka mid ah bukaanada ayaa hadda banaanka dhaqaatiirta ayaa ku hoolan hadda qof ka mid ah bukaanada ayaa la wadaa oo ku dhaawacmay qaraxii ka dhacay ex control afgooye qof ka mid ah bukaanka ayaa la wadaa saad u jeedaan dhaqaatiirtan waxay u dhasheen dalka qadar bukaanada ayaa hadda la soo dejinaya daawadayaal saad u jeedaan qofkan waa qof baraalis ah isla markaasna dhabarka oo dib ka gaaray saad u jeedaan daawadayaal dhaqaatiirtan waa dhaqaatiir dalka qadar imanka ay waxay u qaadayaan dhanka iyo diyaaradda waana la socon doonaa ilaa bukaankan la eegay diyaaradda saad u jeedaan waa qof dhaawaca isla markaasna dhabarka ayay dib ka soo gaaray siday noo sheegeen dhaqaatiirta wiilkan dhalinyarada Soomaaliyeed wuxuu noqday paralysis oo qaybta dambe ee dhabarka ay wax kaga dhaceen saa u jeedaan waa dhaqaatiirtan waxay ku mashquulsan yihiin sida inta diyaaradda loo saarin caafimaadkooda loo baxnaanin lahaa hadda imanka dhaqaatiirta ayaa dul taagan dhaqaatiirtan waxay u dhasheen daawadayaal intan ugu soo biirtay dalka qadar diyaaradda taagan waxay daqiiqado hor soo xaga dhigtay garoonka Aadan Cadde International Airport waxaa garoon ku sugan safiirka Soomaaliya u fadhiyay dalka qadar sidoo kale diyaaradda waxaa la socday wixii hogaaminaya ka mid ah safiirka Soomaaliya u fadhiyay dalka qadar ayaa joogay أبو واسع وحير ورئيسي والقاداس سادو جدان داوديال dhaqaatiirta ayaa ku mashquulsan qof kaloo bukaan asan isla markaas paralysis noqday ayaa la soo dejiyay sidaad u jeedaan daawadayaal waa wiil kaloo dhalinyaro ah oo dhawarka iyadana ay uu dhibka ka gaaray isla markaana dhaqaatiirta noo cadeeyeen inuu yahay qof dhawarka wax kaga yeelaan isla markaana paralysis noqday waa laba ruux oo ku kala fadhiyay labadaas baawar sidaad u jeedaan qofka kale ayaan hadda iminka nidul keenayaa sidaad u jeedaan
ujeedaan maamo jawaahir guddoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir ayaa dul taagan wareyso nashido daawadayaal mar dhow waxaan wareysan doonaa qof ka mid ah dhaawacyada laga qaadayo dalka qatar daawadayaal saa u jeediin wariyeyna cabdullaahi amiin qorshe ayaa ku mashquulsan wejigaada ku jira fadhiisano daawadayaal saa u jeedaan wariyeyna cabdullaahi amiin qorshe ayaa wuxuu wareysanayaa qof ka mid ah bukaanadii isla markaana dhabarka ee xabadda kaga taalo ama firadhadii ku soo gaaray saad u jeedaan daawadayaal weli waxaad nagala socotaan beejka telefishinka qaranka Soomaaliyeed ambalaasyada ayaa hadda taagan weli baawur ayaa weli soo galaysa sida inay muuqato waxaan kul tagi doonaa ambalaasyada markaan oo dhaawacyada bukaanada ku jiraan saad u jeedaan ambalaastan waxaa saaran hooyo Soomaaliyeed oo dib ka soo gaaray qaraxii ka dhacay ex-control Abgoye waa hooyo Soomaaliyeed oo dib ka soo gaaray qaraxii tahay daawadayaal saad u jeedaan waa hooyo Soomaaliyeed oo dhaawaca waxaana loo qaadi doonaa dalka Qatar wuxuu dib ka soo gaaray qaraxii ka dhacay ex-control Abgoye waxaana isku dayi doonaa inaan bukaanada aan wareysano هذا خلطنا بعشرة فرن كتك. سادو جدًا ورينا عبد الله من قرشة أيها وحو ورسنا يا بكانا أو سانيش دليردي دبك سوق على قرح كدعي نكس كنترول أبوي ويل كان برالس أيون نقضي وأنا loo qaadayaa caafimaad dibadda dhanka ee dawladda Qatar ayaa qaadayso saad u jeedaan daawadayaal weli waxaan sugannahay ambalaasyadii waa hooyo Soomaaliyeed oo dib ka soo gaaray qaraxii ka dhacay ex-control Abgoye waad u jeedaan daawadayaal ujeedaan daawadayaal waxaan ku sugannahay weli garoonka Aadan Cadde International Airport
waxaata u jeedaan dhaqaatiirta dalka Qatar oo mid u wareysanaya bukaanada xaaladooda labadaas wiil waa laba wiil oo dhalinyaro ah sida idin muuqato dhaawacyada kale way ka duwan yihiin labadaba waxay noqdeen paralysis hadda dhaqaatiirta ayaa ku mashquulsan u jeedaan daawadayaal dhaqaatiirtan waxay ka yimaadeen dalka Qatar inta gadaal noogu soo biirtay waxaad nagala socotaan page-ka telefishinka qaranka Soomaaliyeed dhaqaatiirta ayaa weli ku mashquulsan yihiin bukaanada iyo waxay wareysanayaan xaaladooda saad idin muuqato bukaanka u horeeyay ayaa hadda dhanka diyaaradda loo waday waa la socon doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo bukaanka ugu horeeyay ayaa la wadaa iminka labada bukaanba waa la soo waday oo dhalinyarada ahayd oo isla markaana dhabarka ama noqday paralysis dhanka diyaaradda ayaa loo wadaa waana bukaanada ugu horeeya diyaaradda la saari doono labadan wiil waxay ka duwan yihiin xaaladooda kuwa kale sababta waxay noqdeen paralysis dhaqaatiirta dalka Qatar ayaa wado waxaa loo wadaa dhanka diyaaradda daawadayaal loo soo dhaweeyay dhanka diyaaradda ayaa loo soo dhaweeyay saad u jeedtiin dhaqaatiirtan ayaa wadaan Abdallah sideen muuqato waa dhalinyaro Soomaaliyeed oo dhaawac uu ku soo gaaray dhabarka labadan wiil ayaa laba qof oo dhalinyaro Soomaaliyeed dibkana uu ku soo gaaray dhabarka goobta ku sugan safiirka dalka Qatar ee u fadhiya Soomaaliya Ambassador Hamza gudoomiyaha warta nabadda Seenab Xabsay waxaa hadda sidoo kale soo gaaray gudoomiyaha maamulka maaliyadda gobolka Banaadir Ibrahim Mahad Alle labada dhalinyaro daawadayaal daawanaysan ayaa iminka hadda diyaaradda la saarayaa sideen ay muuqato safiirka dalka Qatar ayaa goobta u jeedaan waxaa sidoo kale goobta soo gaartay taliye ku-xigeenka booliska Safiya
waxaa sidoo kale meesha ku sugan wasiiro xildhibaano ambalaasyada ayaa hadda la soo dhoweeyey ambalaasyada waxaa laga dejin doonaa dhaawacyo labada ambalaas waxaa saaran laba hooyo Soomaaliyeed oo dhaawac ka soo gaaray qaraxii ka dhacay ex control Afgooye hadda ayaa diyaaradda la saarayaa ambalaaska laga dejinayaa daawadayaal saad u jeedaan Soomaaliyeed dhaawaca dhaawacyada ayaa hadda iminka ambalaaska laga soo dejiyey sida inay muuqato daawadayaal ambalaasyada ayaa hadda weli dhaawaci laga dejinayaa hadda tirada la keeno waa 7 ambalaasyada kale way soo socdaan sida idin muuqato
ambalaasyo kale ayaa hadda soo galaya imanka ambalaasyo badan ayaa hadda imanka soo galaya sida inay muuqato daawadayaal waxaa imanka soo galaya ilaa 10 ambalaas ka badan ayaa hadda imanka elboorka soo gashay daawadayaal imanka waxaa soo galaya ambalaasyo aad u tiro badan waa tahay daawadayaal imanka waxaa albaabada soo galaya ambalaasyo aad u tiro badan oo ambalaasyadan dhaawacyo badan ay sidaan sida idin muuqato imanka ay garoonka soo galayaan daawadayaal halkaad nagala socotaan waa beejka telefishinka qaranka Soomaaliyeed tabintan tooska waxaan ii soo tabinayaa anigoo Cabdiqaadir Catoosha iyo saaxiibka Cabdullaahi Amiin Qorshe ay soo galeen daawadayaal sida idin muuqato imanka ay ambalaasyada soo galeen sida idin muuqato daawadayaal hadda ambalaasada soo galeen daawadayaal hadda ay soo galeen ambalaasyadii imanka ay soo galeen ambalaasada daawadayaal daawadayaal sida u jeedaan ambalaasada ayaa laga dejinayaa dhaawacyo kale oo isugu jira haween iyo ragba hadda elboorka ay weli ku sugannahay sida idin muuqato daawadayaal waxaad nagala socotaan telefishinka qaranka waxaa halkan soo gaaray gudoomiyaha gobolka Banaadir oo isagana dhaawacyada booqanaya sida idin muuqato gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa wuxuu booqanaya ambalaasada lagu sida dhaawacyada gudoomiyaha gobolka Banaadir ana duqa caasimada Muqdisho iyo gudoomiyaha dhanka maaliyadda gobolka Banaadir ayaa booqanaya dhaawacyadii muuqato
soo noqod wacan daawadayaal waxaan ku sugannahay weli garoonka caalamiga ah ee aadan cabdulle cusmaan waxaa halkan maaragta aad u jeedaan oo taagan diyaaraddii laga dejinaya dhaawacyadii dadkii dhaawacyada kala duwanaa maaragta ay ka soo gaareen qaraxii ex control afgooye ayaa dhaawacyadoodii la keenay maaragta halkan waxaa saaran oo lagu keenay gaadiidka caafimaadka oo leeyahay isbitaalka Ordogan ex Digfaar marka dadkii ayaa hadda la dejinayaa saa u jeedaan oo maaragta diyaaradda laga dejinayaa marka halkan waxaa yaalla waa qaar ka mid ah dhaawacyadii ayaa la dejinayaa qofkan waa qof dhalinyaro ah saa u jeedo waana haween wasiirka boostada isgaarsiinta ayaa maaragta halkan taagan sidoo kale waxaa taagan gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa ka mid ah dadka maaragta garoonka ku sugan oo dadka dhaawacyada sagootinaya gudoomiyaha dhankaas ayuu taagan yahay saa u jeedaan gudoomiye ku-xigeenka maamulkii maaliyadda ayaa sidoo kale gudoomiyaha la socda oo asaguna dadka dadka dhaawacyada sagootinaya marka dhaawacyada la soo dejinaya dhaawacyada la soo dejinaya sida u jeedaan qofkan waa qof asaguna maaragta odaya oo dadkii dhaawacyada soo gaaray ka mid ah dhaawiciisa ayaa la geynayaa maaragta isbitaalka waxaa la socda shaqaale caafimaad oo Soomaali ah dhaawacyo culus ayaa jirkiisa ka muuqda saa u jeedaan daawadaya dhaawacyo culus ayaa jirkiisa ka muuqda gudoomiyaha ayaa wada oo maaragta sagootinaya gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa dhinac ka wada oo u jeedaan sagootinaya waa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Cumar Finish ayaa maaragta sagootinaya saa u jeedaan gudoomiyaha waa kan diyaaradda ayaa la saaraya dadkan garoonka asaguna soo galay hadda garoonka yimid ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa garoonka hadda soo galay waxaa barbar socda maaragta mas'uuliyiin ka tirsan golaha xukuumadda ayaa ayaguna sidoo kale barbar socda ra'iisul wasaaraha waa garoonka ayuu hadda soo gaaray mudane Xasan Cali Khayre wuxuu ka mid yahay wafdiga maaragta mas'uuliyiinta sagootinaya dhaawacyada maaragta isbitaalka ra'iisul wasaaraha ayaa maaragta u jeedaan daawadayaal waa ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Khayre oo asaguna soo gaaray garoonka
سأوجد ورئيس الوزراء وقعن قاضية qaar ka mid ah mas'uuliyiinta iyo diblomaasiyiinta kale ee ajaanibta ah ayuu ra'iisul wasaaruhu maaragtaa salaamaya marka saa u jeedaan waa ambassador James Wan safiirka Turkiga iyo maaragtaa mas'uuliyiin kale ayaa iyaguna ku sugan xildhibaan Mahad Salaad gudoomiyaha gobolka Banaadir وزارة حسن علي غير وزير الدولة وزارة الدارمة هدي بدأ سفير التركية يا سفير الصومالية دلك التركية جدا ورئيس الوزراء حكومة الفدرالية الصومالية مسؤولين كلا دونا يلا صعدة هل كان وحتى كان قار كم من هذا كذا وعيدا كلا دونا قبي هذا هو العلم وحن فرحانو وعلمنا اللي يرى داوع وصول جاري سو جدا رئيس الوزراء ayaa waxa uu u socdaa dhanka diyaaradda mudane xasan cali khayre كمدا غالي لكني والكن في ماركة جودان كتوا كمدا سدا وعمي قرحي أفريقيا طبعا في ماركة سديد لو تكبشان كده عاي إيش كنترول أبوي أي كدرتا دان بلوكيل بس في عدالة شكل العادة لو محوي هذا
ah dadkii ku soo dhaawacmay qaraxa 28 bishaan ka dhacay ex control afgooye waxaa la socotaa mid ka mid ah shaqaalaha caafimaadka ee isbitaalka Ordogan soo jeedaan waa qaar ka mid ah shaqaalihii caafimaadka mid ka mid ah ambalaasyadii waaye halkan waxaa ka muuqda waa ruux dumar ah waxaa soo socda waa qaar ka mid ah mas-uuliyiinta maaragta dowladda ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda waa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo mid uu soo maray qaar ka mid ah dhaawacyada wasaaraha wuxuu fiirinayaa qaar ka mid ah dhaawacyada saa u jeedaan ra-iisul wasaaraha xasan cali khayre ra-iisul wasaaraha waxa uu la joogaa dadka dhaawacyada ayuu xaaladdeeda caafimaad weydiinaya wuxuu kala sheekeysanayaa dabcan saan dareemaya xaaladda waa wiil dhalinyaro ah maaragta ka mid ah dadkii qaraxa ku soo dhaawacmay waa u duceynaya ra-iisul wasaaraha qof kale ah oo dhalinyaro ayuu ra-iisul wasaaraha u tagay saa u jeedaan fiirinayaa qaar ka mid ah dadka dhaawacyada kala duwan qaba ra-iisul wasaaraha wuxuu la sheekeysanayaa qofka waa qof haween ah oo ka mid ah dadka dhaawaca ra-iisul wasaaraha wuu la sheekeysanayaa wuu ka soo baxay ra-iisul wasaaraha markan qof kale oo dhalinyaro ah ayuu u yimid qofka dhalinyaro ayuu u yimid waa qof ka mid ah dadka dhaawacyada qaba ilaahay caafiyo waxaan alla uga baryaynaa inuu caafimaad taama siiyo gabadhan ilaahay caafimaad taama ku siiyo oo kusoo duceynayna insha allah waxay ka mid tahay dadka ku dhaawacmay qaraxa ex control afgooye ka dhacay
duceynaya ra'iisul wasaaraha wuu u duceynaya dadka ayuu u duceeyey ilaahay caafimaad ka masiiyo alle uga baryay markaan waxaan ku wareejinayaa markaan cabdiqaadir cabtoosh ayaa idinku wareejinayaa waa tahay daawadayaal waxaa booqashada ku soo biiray saad daawanayseen ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Kheyre oo dhaawacyada galabta loo qaaday dalka qadada Soomaaliya waxaa weli la sida dhaawacyadii imankana hooyo Soomaaliyeed ayaa la soo dejiyay sida in muuqato oo lugaha burburkooda ka muuqdo isla markaana ay dul taagan yihiin gudoomiyaha haweenka bulshada gobolka Basma gudoomiyaha haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Baarqab gudoomiyaha warta nabadda Sayid Xabsi iyo agaasimaha Ilqaan Maryam ayadana ka mid ah dadka dhaawacyada galabta wax ka taabulaya sida in muuqato hooyo Soomaaliyeed ayaa la wadaa imanka daawadayaal waa hooyo Soomaaliyeed oo lugaha ka jajabay dhaawac ku soo gaaray daawadayaal waa hooyo Soomaaliyeed waxaa hadda xaaladdeeda wareysanaya gudoomiyaha haweenka arrimaha bulshada gobolka Banaadir Basma iyo qaranka gudoomiyaha degmada sida degmada warta nabadda Sayid Xabsi iyo gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Baarqab sida u jeedaan dhaawacyada ayaa weli diyaaradda la saarayaa waxaan ku suganahay garoonka Aadan Cadde International Airport tooska inta kala socdaan waa beeshka telefishinka qaranka Soomaaliyeed markaan waxaan isku dayaynaa inaan wareysano mid ka mid ah dadka bukaanada runtii waan u mahadcelinayaa walaalaha Qatar oo ah walaalo runtii noo soo gurmaday iyaga iyo walaalaha Turkiga aad baan ugu mahadcelinayaa maanta waxaa la qaadayaa qaybtii labaad ee dhaawacyada kuwii shalay ka hadhay waan u mahadcelinayaa dowladda Qatar iyo shacabkeedaba marka labaadna waxaan u mahadcelinayaa mas'uuliyiinta dowladdeena oo iska xil saaray in shacabkii argagixisadu sida arxandarrada u xasuuqday in maanta mar labaad loo qaado waddanka Qatar Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan uga rajaynayaa iyagoo caafimaad qaba oo nabad qaba inay ehladooda u soo laabtaan Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan uga baryay inuu dhaawacyada u dhib yareeyo cid kasta oo maartaqaana ka qayb qaatay in dadkaas ay caawimaad iyo gargaar caafimaad helaanna Ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ka abaalmariyo shacabka Soomaaliyeedna dee way u jeedaan maanta waxa qof Soomaali halkaa taagan oo argagixisadu ay isu keentay madaxooda isugu yimid waxaan rajaynayaa inay iyaguna meel ugu soo wada jeestaan insha Allah aad ayuu mahadsan Maam Cabdirashiid oo ka mid ah dadka kalabta dhalinyarada ku sugan garoonka Aadan Cadde Airport markaana waxaan jeclahay inaan dad kale aan wareysano qaar ka mid ah ehelada waxaa markaa noo dhiibay maamada Isxilqaan Maryam ayadana shaqada ka shaqeynaysa بسيط
بسم الله الرحمن الرحيم waxaan joognaa airportka caalamiga ee magaalada Muqdisho sida arkaysiin waxaan la jooga diyaarad dawladda Qatar ay leedahay iyo dhaqaatiir qadariyana safiirka Qatar u fadhiya dalka Soomaaliya dhaqaatiir waaweyn oo dalka Qatar ka timid dhaqaatiirteena Soomaaliyeed wasiir ku-xigeenka xildhibaano ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed oo gabi ahaan maanta halkaan u taagan walaalahood ku dhaawacmay qaraxii dhibaatada weyn geystay ex control in loo qaado dalka Qatar halihii maanta qayb ahaan loogu talagalay inay Qatar aadaan dhaawacyada la qaadayo 16 waay tiradooda waxa ku jira gabdho waxa ku jira dhalinyarada jaamacadaha waxa ku jira dad odayaal waaweyn waxa ku jira dad kooma waxa ku jira dad xoogaa ay dhaawacooda ilaahay amarkiisa insha Allah uu reesan rabo reesan doono oo aad u darneen inta waa la qaadaa insha Allah marba say u kala dardaran yihiin loo qaadaya walaalaheen Turkiga iyo walaalaheen Qatar waa u mahad celineena dhibaatada markay nagu dhacday sida degdeg ay noogu soo gurmadaan iyo walaalaheen Jabuutiba maxaan leeyahay walaalayaal adduunka ayaa walaalo lagu yahay aakhiro walaal ma jiro markii la dhinto kadib ummadeenana ilaahay dambigooda ha dhaafo dad nadiifana Allah ka dhigo dhibaatooyinkan ilaahay naga garqaado dhaawacyada aragtay dareenka sidoo aad iyo aad u dareenkaygu culus yahay dhaawacyada aan arkay waxa ku jira dad kooma ilaa maalinta qarax dhacay ilaa maanta wada bararsan hada wajiyadooda garanay qaar gubanaa jiro ayaga dhan guban oo muruxsan oo dharka kor loogu hayo aan lagu dhaji karin korkooda muruxsan qaar lagu go'an yihiin qaar gacmihi go'an yihiin qaar indhihi wax ka soo gaareen oo adigaba ku jeedin marka waxaan leeyahay ilaahay noo keen masiibadaas haddana uu noo keeni karaa nabad waarto waa mahadsantahay waxaan u dhiibaynaa wasiirka caafimaadka ayaa markaa ku soo wasaaradda caafimaadka loo jiro maanta tirada la qaaday iyo xaaladda eelaboorka ay hadda ku sugan بسم الله الرحمن الرحيم رنهانتي waxaan halka mahad gaar ah ugu celinaynaa walaalaha noo soo gurmaday oo ay kamid tahay dawladda maxaan raday Qatar runhaantii 22 bishan ayaa hadda maxaan raday airportka laga qaadaya walaalaheena qaadaya dhamaantood waxaan u rajaynaynaa in Ilaahay uu caafimaad siiyo insha Allah ta'ala ayna noo soo noqdaan dhamaantood ayagoo bad qaba insha Allah waxaan Ilaahay xaqiisa ka baryaynaa in ummadda Soomaaliyeed dhamaan uu nabad iyo caafimaad ku baraariyo insha Allah cadawgan ummadda baabi'inayaan inuu Ilaahay naga qabto waxaan u sheegaynaa shacabka Soomaaliyeed in dawladda Soomaaliyeed ay u taagan tahay sida ay arkaan in kuwa wax dumiya dawladuna ay wax dhista kuwa wax dila dawladana ay ka shaqeyso sida caafimaadkooda ay horumarin lahayd wasaaradda caafimaadka hadaan nahay wax walbo waxaan ka horumarinaynaa sidii dadkan caafimaadkooda iyo dhibaatada loo geystaa waxaan u qaban lahayn insha Allah assalaamu calaykum kaasina wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka weli waxaanu ku suganahay garoonka aadan cabdi markan waxaan ii joogaa aad u mahadsantahay daawadayaal halkaad nagala socotaan waa telefishinka qaranka markaan waxaan ku soo wareejinayaa saaxiibkay weliye Saciid Taaliil bal xaaladda meeshay maraysa iyo wariyana ay ku soo dhaweynayaan waa mahadsantahay Cabdiqaadir Catoosh sida idin muuqata halkan daawadayaal waxaan ku sugannahay garoonka diyaaradaha Aadan Cabdi ee magaalada Muqdisho waxaana taagan diyaarad ka socota dalka Qatar oo lagu qaadaya walaalihii Soomaaliyeed ee ku waxyeeloobay qaraxii ay argagixisada al-shabaab ku xasuuqeen dad shacab oo waxba galabsan oo ay u qaayeen arday u kala socotay dugsiyada iyo sidoo kale xarumaha jaamacadaha goobta waxaa soo gaaray sida hore u aragteenba ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Xasan Qeere wasiir iyo xildhibaan ka tirsan dowladda Soomaaliya gudoomiyaha gobolka Banaadir Ahmed Duqa magaalada Muqdisho mar ka dambeeyay waxa goobta soo gaaraya dad dhaawacyo ah oo laga keenaya xarumaha caafimaad ee magaalada Muqdisho sida isbitaal Madiina iyo isbitaalka Digfaar oo la geeyay dhaawacyada ugu badnaa dadkii ku waxyeeloobay qaraxii ka dhacay isgoyska ex control afgooye ee magaalada Muqdisho waxaa sidoo kale goobta ku sugan eheladii dadkii loogu talagalay inay raacaan dhaawacyada magaalada Muqdisho haddaba sidii muuqato muuqaalkaasi qofkaasi waxa uu ka mid dadka dhaawacyada ah ilaahay caafimaad taam ha siiyo oo mid degdeg ah ilaahay ha siiyo daawadayaal weli waxaad idiin soo tegi doonaa hadba meesha ay marayso sida dadka xaaladda caafimaad loo tacaalaya ee loo qaadaya dalka Qatar daawadayaal weli waxaad la socotaan sida tooska diyaaradda Qatar oo magaalada Dooxa u qaadi doonta
bukaano Soomaaliyeed oo ku waxyeeloobay qaraxii ka dhacay isgoyska ex control afgooye magaalada Muqdisho haddana waxaan ku soo dhaweynayaa wariyeena Cabdullaahi soo dhow waa mahadsantahay Nuur dabcan maanta waxaan ku jirnaa live-kii aan ka tabinaynay garoonka diyaaradaha ee maaragta Aadan Cabdulle Cismaan sidaa la socdo waxaa baxaya qaar ka mid ah dadkii ku dhaawacmay qaraxii maaragta ka dhacay ex control afgooye mas'uuliyiin kala duwan ayaa halkan joogta ku mid ah ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo wasiirro kale dadka dhaawacyada ah qaarkood waa dad maaragta aad u daran oo aanan hadli karin dadka kalena qaarkood waxa waaye dad xaaladoodu ay maaragta ka roon tahay sida caadiga oo xaaladooda maaragta ay garaab leedahay marka waxay ku jiraan weli qaarkood ambalaasyadii ku jiraan oo waa la rarayaa waxay sugayaan maaragta in loo qaado halkii loogu talagalay hadda halkan waxaa fadhiya waa agaasimaha xafiiska arrimaha bulshada xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda ahna agaasimaha isxilqaan Maryan Amiin iyo sidoo kale qof ka mid ah haweenka ku soo dhaawacmay qaraxii maaragta dhawaan ka dhacay ex control afgooye sida la socotaanba waa qof Maryama lahaa say magaceeda noogu sheegtay waana qof dhalinyaro ah Maryan Cabduqaadir Cilmi oo qof dhalinyaro ah ku dhaawacmay jaamacadda Banaadir arday mid ka mid ah ardayda jaamacadda Banaadir ayuu ku jirtaa sida naloo sheegay sida naloo sheegay ardayday ka mid tahay jaamacadda
waa tahay daawadayaal halkaad nagala socotaan waa telefishinka qaranka beejkiisa weli waxaa lagu jiraa qaaditaankii dhaawacyada sida nii muuqato gabadhan oo ardayda ka dhigatay jaamacadda banaadir islamarkaana uu dhaawac ka soo gaaray waxaa la joogto agaasimaha isxilqaan maryan sida nii muuqato waa qof bukaan oo dhaawaca gacanta ka soo gaaray waxayna ka mid ahayd ardayda dhiganaysay jaamacadda banaadir islamarkaasna ka badbaaday baskii ay ardayda la saarneed sida hadda aan wareysay aad ka daawan doontaan telefishinka qaranka Soomaaliyeed ee ugu bixisay inay ku weysay ardayda la dhiganaya jaamacadda banaadir islamarkaasna ayay diyaarinaysay imtixaankii ayna ku jirtay semesterka ugu dambeeyay jaamacadda banaadir wareegaas oo dhameystiran insha Allah waxaad ka daawan doontaan telefishinka qaranka Soomaaliyeed gabadhan sida nii sheegay waa ardayd ka mid ah ardayda dhigata jaamacadda banaadir islamarkaana ka badbaaday baabuurka baska ay saarneed